Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waqtiga ugu yar awgeeda waxaan rabaa inaan muuqaalkan aan idiin soo sameeyo. Sababtan muuqaalkan u sameynayna waxay tahay in hal mar aan wax isla wada aragno. Dad badan ayaa waxay igu wareeriyeen ayagoo dhahayo waa la furi rabaa kan waa xitaa waxay ii soo dirayaan YouTubeyo dad cadaan ay leeyihiin oo dhahayo waa open ay dhahayaan. Dadkaas oo dhan open dhahayaan war waa ogtihiin inaysan open ahayn. Welina website-ka dowladda aan waxba maaragtay la sheegin waa wada ogsoon tihiin. So dadkaasi open way dhahayo dhan waa dad maaragtay raadinaya views raadinaya. Waa ani views raadis ma ihi runtii. Aniga runtu wax in aan ahayn inaan sheega ma jecli. Okay, waxbaan idin tusayaa marka DV lottery-ga halkaan aan ku qoraynaa fiiriya. So DV lottery markaan halkaan aan ku qorno number 1 ogow inaysan open ahayn. Sidee ku ogaan kartaa? Okay, hadda fiiri dowladda website-kan ay wax kaga dhawaaqdaa soo ma ahan. Okay, wax information arrintaa ku saabsan miyaa ku jira meeshan? Okay, ma aragtaan. Okay, meeshan newska aan tagno wax news ku saabsan oo informationkaas miyaa ku jira? Passportka waaye, viisaha waaye, adoptionka waaye, international travel news waaye. So wax informationkaasi ku saabsan ma jiro. Okay, let's go back marka. Waa travel waxaan fiirinaya waa US Department of State waaye, Bureau of Consular Affairs waaye midkan fiirinaya. Okay, dad baa marka kan intay soo qaataan waxay ka dhigayaan wax oo maaragtay run ah oo website-ya la iisoo diraya. Waxaa la iisoo dirayaa YouTubeyo dad cadaan leeyihiin. War waxaasoo dhan waa wax maaragtay ay ku raadsadaan inay ku helaan maaragtay views inay ku raadiyaan waaye. Waa lidinka waalaya. So marka hore waa la furayaa lidnaha laakiin markii dambena wax caddayn alle ima siinayo. Okay, marka qaybtan newska markaan ku dhufto wax news ma aragtaan oo ku saabsan. Okay, kanaan kali ku siinaya passportiga hadhow intaa dhihi lahayd meesha passportka maxaa ugu dhufan lahayd. Special passport acceptance. How passport can help you. Replacing your passport operation, passport demand. Recipient iyo weliba do you have picture recipient of 2017. Okay, kaas waa isla aragnay soo maahan. Okay, let's go back haddana kan aan ku dhufano US visa news. Okay, chain to vaccination, important announcement on FM. Okay, immigration visa, maxaa waay prioritization. Okay, diversity visa program waatana laakiin sanadkee waay 2021 waay fiiri ku dhufa marka. Okay, 2021 waay meel dhehaysa waa la furay dhehaysa ma aragtaan. Okay, on September 9th District Court of District Columbia Parliament enjoyed the Department of them for applying November 2021 priority policy guide on diversity visa DV21 application and other department in order good faith offered to expedite process divert application including divertative beneficiaries by September 30, 2021 to court state that the department may not really on the November 2020 prioritization guidelines force close rehabilitation embassy ambassador. Marka wax ka hadlayo oo dhahayo 2023 applicationkiisa furmo meeshan kuma jiro. Waa ogtihiin waana ujeedaa. Okay, dhanka kale meeshan kale oo dhan wax ku jira ma laha. So dadka cadaanka ah oo idin wareerinaya ama madowga ah waxa iga daaya. Aniga Soomaaliyan ahay waxaan wax idinku sheegayana waa wax rasmi ah oo cad oo clean ah ayaan wax idinku sheegaya. Ma rabo inaan fees idinku raadsado. Okay, marka waa let's go back marka all the way down u noqono marka inta u noqono waxaan galaynaa website-ka haddana rasmiga ah. Meeshan inuu furan yahay ma aragta fiiri 2021 2022 aan iraahde iyo 2021. Okay, open ma aragtiin brothers and sisters. Information lagaga dhawaaqay ma aragtaan. Waa maya. Hal mid way jirtaa oo dad asxaabta YouTube-ka ku jira oo ila soo wadaagay oo kamid ah in safaaradda Suudaan ninka qunsilka meesha ka ah meesha jooga in uu dhahay muuqaal uu soo duubay oo uu leeyahay bishan 6 ayay bilaabanaysaa. October 6 ay bilaabanaysaa diversity-ga dhahayo way jirtaa. waan aragnay taa waa xaqiiq laakiin wax kale oo official ah
oo furmay ama website-ka dowladda ee DV-ga ka shaqeey waa kana okay arrinka DV-ga website-ka ka shaqeey waa kana walaalayaal oo fiiri ma aragtaan horta so ha i wareerin aniga idinkana ha is wareerina ayar October 6 uu furmayaa October 6 inuu furmayana waa guarantee cid maaragtay la weydiinayo ma jirto okay so October 6 wuu furmayaa taa la iskuma haysto laakiin dowladda weli ma ku dhawaaqtay maya so qunsulkaasi oo dhahayay October 6 uu furmayaa 2021 kan ayuu furmayaa sanadkan hadda aynu ku jirno dhahaya ma ahane website-ka dowladda waa kana website-ka kale dowladda waa kana ma jirto okay tan kale waxbaan ku tusayaa marka okay fiiriya US Embassy Sudan aan ku dhufanaynaa US Embassy Sudan okay warka ay Facebook soo dhigeen warkaas ay Facebook soo dhigeen newskooda ma ku jira ma aragtaan wax newskoodii ah arrintaa ku saabsan ma aragtaan ma ku jiraan okay so newska kuma jiro ma ujeedin mujadin number 2 ku dhufo inta imaw okay inta marka maxaa aragtaan marka ku dhawaaqis miya mise waa digniin okay marka wax horta aan wada fahanno the application for 2022-2023 community solution program way maaha DV lottery maaha so wax application oo lagu dhawaaqay oo rasmi ah ma jiraan maya waay okay waa kuwan marka information kooda oo dhan brothers and sisters markan yaa la iswareerinin tartiibto okay yaa la iswareerin wuu furmayaa horta marka la gaaro bishan 6deedii markii la gaaro wuu furmayaa safaaradda Sudan way sheegtay qonsulka waliba Facebook-ooda ay soo dhigeen laakiin page-koodii safaaradda waa kana US Embassy in Sudan ma idin qaldaya mise ma idin qalday idin kale is saxa mar okay tan marka waa taas tan waa kii dowladda caadiga ah ee qaabilsaneed arrimaha electroniga waa kana US Department of State Bureau of Consular Affairs Internet Email Electronic Diversity Visa Applicants Entry mujida systemkaasaan ku jirnaa markaad anaga meeshan ku jirno waa inta ayaga ma ku dhawaaqeen ayaga waa maya kumaysan dhawaaqin weli waaye warbixin rasmi ah lagama hayo okay maadaama aan warbixin laga haynin macquul ma tahay inuu furmo yes macquul waay wuu furmaya waay uga dhawaaqi waayeen lama oga sababta ay ugu dhawaaqin ayaga anaga ma naqaano laakiin inuu furmayo waa xaqiiq waana furmaya taas laba calis ma weydiinayso so hadda leedahay shaaciyo waay qonsulka jooga Sudan oo u dhahaysaas ana ku sheegay marka wuxuu u dhahay hadalkiisa dad si fiican u dhageysateen dadkiina carabiga yaqaan iyo dadkiina englishka yaqaan si fiican ii dhageysta waa idinkana barnaamijkan ha loo dhageysto digniin ayuu dirayay digniinta uu dirayay waxay tahay wuxuu dhahay fiiriya official ahaan kumuusan dhawaaqin laakiin wuxuu dhahay diversity visa-ga oo furmayo October 6 sanadkan ayaan warbixin idinkaga haynaa oo alert idinkaga diraynaa digniin idinkaga diraynaa wuxuu dhahay marka ha isku day inaad lacag ku bixisid ha isku dayin inaad qolo kale u adeegsatid inay lacag ku bixiyaan waxaa kaloo u dhahay in qof kale ii apply gareeyo wadan kale la iiga apply gareeyo ma ii boost gareynaysa macnaha boost waxa laga wadaa dadka kale ma iiga hormarinaysa oo jaaniska inaan guuleysto kor ma u qaadaysa waxaas dhan marka wuxuu dhahay false way okay wuxuu kaloo dhahay haddaan xasuustay haddii kaleba adiga 4 qodob 5 qodob uu ka hadlay intaasoo dhanna waxay ahayd alert iyo wax rasmi ah oo jiru sheegayay laakiin isaga official ahaan kumuusan dhawaaqin hase yeeshee wuu furmaya aniga ma idin diidani inuu October 6 uu furmayo October 6 wuu furmaya xaqiiq waaye taas wixii dhici doono ilaahay subxaanahu wa ta'ala og waxa ayaga u aamusan yihiin weli aysan uga hadlin ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaga og anaga ma naqaano weli kamaysan hadlin so digniintaasi ninkaas qonsulka ah yuu u dirayay marka
wuxuu u diraayay dadka Suudaan ku sugan ayuu u diraayay sababta ugu diraayay waxay tahay dadka Suudaan maadaama isaga safaaradiisa ay Suudaan ku taalo waxaa mas-uuliyad ka saaran in iyada oo maaragtay la marayo habkii dowladda dhibaato la gaarsiiyo shacabka Suudaan ayuu diidanaa cid kastaba ha ahaadan Soomaalida Mareykanka Faransiiska Jabaan cid walba Suudaan joogta oo rabta inay abalaay garaysato fiisaha ayuu diidayay in dhibaato la soo gaarsiiyo taas darteed ayuu maaragtay uu warbixinta u soo saaray allaartigana u soo saaray waana waajib ka saaran wallahi waajibkiisa ayuu qaatay so okay mid baan idin sheegaya website-ka saxda ah waa kana marka oo laga apply gareyna inta maxaa ku qoran dvprogram.state.gov and gov maxaa laga soo gaabiyay government laga soo gaabiyay so govtaas hadaa aragtid waa government ay ka timid okay website-yadan marka iska jira marka website-kan fiiri waxbaan idin tusayaa dv lottery dhaha dv lottery markaa dhahdaan kan imaada fiiriya website-yadan waa website-yo tuuga fiiri kan waa loo ekeysiiyey kii dowladda loo ekeysiiyey calaamadii dowladda la saaray dv lottery la saaray soo dadka intaasaa lagu qaldan waxyaabahan oo kale iska ilaaliya website-yadan website-ka saxda ah oo dowladda waa kana website-ka saxda ah ee laga apply gareeyana waa kana okay kan waay qoraalkan fiiri qoraalkan hala fiiriyo brothers and sisters dvprogram.state.gov ama gov okay kaas fiiriya kan ha ku mashquulina waa qolyo maaragtay raba in informationkiina gacanta ay ku dhigaan iyo qolyo raba inay lacag idinka qaataan raba weeyaan okay fiiriya fiiri hadda fiiri tusaale idin tusaaya fiiriya are you eligible ay dhahayaan fiiriya waxaan dhahayaa yes Somalian dhahayaa waa ku dhufanaa fiiriya fiiri Somalian dhahayaa next question what's your highest education waxaan dhahayaa high school aan iska dhahayaa waan ku dhufanayaa what within the last 5 years have you worked waxaan dhahayaa yes aan dhahayaa okay apply oo dhahayaa fiiri wixii ma furan yahay horta ma furna yes inuusan furnayn xaqiiqda iman aha waa kana inta imaaw ma furan yahay kan may hadda is leedahay kan maxaa waay kan waxaa waaye check waay dadkii horey u apply garaystay oo lagu dhawaaqay inay guuleysteen in ayaa maaragtay iska jeegareeyo laakiin halkan fiiri apply oo dhahaya congratulations you fulfill the requirement to join the green card lottery so wuxuu dhahayaa apply gareey uu dhahayaa fiiri apply gareey wuxuu dhahayaa informationkii inuu helo rabo okay apply aan ku dhufanaa marka fiiriya isla markii fiiri miyaan kuu sheegaa fiiri hadda kan celi fiiri khiyaanada meesha ku jirto horta hubsada fiiriya kan markaan ku dhufto apply now markaan dhaho wuxuu ii furayaa website kale isla markii kan wuu iga tuuray wuxuu iiga tuuray mataqaanaa waa sirta halkaa ku jirta weeyaan fiiri wuu iiga tuuray maxay ku kala duwan yihiin marka kan dowladda jag haddaan dhaho wir option kale ha ii furo ma ii fura isla isagii la ii furmaayo mujada horta ma aragtaan fiiri islagii le waa mujada meel kale ma u dhaqaaqay sawirka bahal kale ma ii furmay micnaha mid kale oo cusub iima furmin fiiri aan ku dhufanaya isla isagii le waa kanna isla isagii le waa laakiin kan waa xiraaya kana xiraaya kan fiiri apply markaan dhaho mid kale cusub ayuu ii furaya waa ii furaya sirta halkaasay ku jirtaa waa kana ugu dhufanaya fiiri waa kana okay so maxaa ugu horeeyay marka title-kii fiiri addresskaagii magacaagii passwordkaaga geli kadibna family date-kii kadibna trade payment fiiri payment maxaa idin dhahay markaani waa khiyaano socoto alaabtan payment marka bixiyo ku dhahaya dowladdana maxay kuu sheegtay inaysan payment jirin free uu yahay xitaa ninkii u dambeeyey shalay konsulka Suudaan ee ambasadorka meesha fadhiyey wuxuu dhahay free waay soo saa u ogaada yaa la idin khiyaanin intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadiini inoola kulato amaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabtiinana u sheer gareeyay ha ka faa'iidaysaan muuqaalkan waa muuqaal aad muhiim u ah ha ka faa'iidaysaan asxaabta ha loo sheer gareeyo insha allah